السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. isku soo noqod wanaagsan. Waxaan samayn doonaa inaan cashirkan ku sheegi doonaa inaan akoon samaysano. Halkaas inoo joogtay akoon sida loo samaystaa. Waxaa ku dhufan doontaa hal mar haddii platform meesha aan sharaxo inta badan meeshan dashboardka waa waxaan ticketkiisa waa transactionka meeshan waxaa loo yaqaanaa waxyaalaha transactionka lacag iyo waxyaalaha ka dhacay ayaa mataqaanaa meesha lagu ogaan doonaa. Inta waa reportingki hadhow macnaha markaa rabta reportkaada iyo waxyaalahaas inaad daabacato. Inta waa accounts waxaa laga wadaa tusaale ahaan waa meesha dhan oo manage nicknameska laga maamuli lahaa waa accounts waaye. meeshana waa users halkaan marka meesha ugu muhiimsan waa halkaan waa cajiib. meeshana ugu muhiimsan waa affiliate marketplace ka dhan suuqa dhan meesha aan wax ka maamuli doono waa halkaan. meeshana ugu muhiimsan oo halkaan waa meesha mataqaanaa marketplace ka dhan suuqa dhan halkaan waaye. meeshan waa link tools waxaa tools waxyaalaha iskaga jiro. inta waa education inta waa profile-kaaga. marka waxaa ugu muhiimsan accounts-kan iyo sidoo kale marketplace-kan. hadda accounts-kan u nimaadno marketplace-ka iyo sida loo doorto niche iyo sida product ugu wanaagsan loo doorto waxaas dhan waa ka hadli doonaa dhimo lahan. okay account markaan rabno inaan samaysano accounts ku dhufanaysaa kadib meeshan hadda waxay ku samaysan aniga hadda waa qarinayaa ilaa 3 nickname oo kala duwan ay samaysan. marka hadda waxaan dhihi doonaa halkan aan ku dhufan doontaa waxaa dhihi doontaa create nickname kadib type carabtaada inaa haysiis affiliate promote product saa dooran doontaa because waxaan rabnaa inaan alaab promote gareyn kaliya rabnaa. kadib magaca meesha ku qornaa magacaas oo highlight gareynayaa. marka meesha waxaad ku qori doontaa nickname tusaale create waxaan soo qorayaa tijaabo kadibna waxaa leedahay sign up. markii tijaabo sign up aad tiraahdo hadana VPN mii daarno sign up ay dhahdo. okay tijaabo waa kana marka liis sameeyay. markaysaa tijaabo waa liis sameeyay 29 bishii lixaad ee liis sameeyay. okay tijaabo kligaan siin doonaa. marka tijaabo aan sameyno waxaan sameyn doonaa tijaabo inaan click siino platformkana kusoo bixi doona. meeshan waxaa u hadli doonaa accounts waxaan sameynay nickname aan samaysatay. nicknameka marka waxaa u hadli doontaa yacni sidii qofkaas platformkiisa ama wax loo yaqaano macluumaadkiisa ugu buuxin lahayd. waxaad tegi doontaa meeshan ay ku qoran tahay account settings. meeshan account settings ay ku qoran tahay click see ana meesha macluumaadka dhan waa qarin doonaa. marka account settings aad ku dhufato ada waxaa kusoo bixi doona meeshan way maran tahay haddana waa buuxdaa xoga ku jirto. intaan waa qarinaya kow qof waxaa weydiin doontaa buyer nameka qofka raba alaabta in gada buyer nameka mataqaanaa ayaad magaciisa inta gelin doontaa. laba adresskiisa tusaale ahaan adresskiisa gelin doontaa adres waxaad gelinaysa. kadib waa meesha macnaha account informationka ka hadlaya. account informationka intaas laga buuxin doonaa. waxaa u maa doontaa account settings. hadda meesha ani edit ma dhahayo laakiin adiga waxaa leedahay click aad siin doontaa meel cusub ku furan. kadib waxaa kusoo boodi doona intaan oo banaana kusoo boodi doonta namekii magacaada gelin doontaa ama qofka magaciisii emailkii oo shaqada lagu qaban lahaa ayaa meesha gelin doontaa. account phone meesha waxaa gelin doontaa telephone numberka qofka hadda kugu xiriya telephone numberkiisa gelin doontaa. okay preferred language luqadda la isticmaalo inta badan waa English. time zone-ka waa not set. okay email format waa HTML waxaa ka dooran doontaa HTML. أنا فهمت ورجينا transaction email مش أقول شو كلام مرة transaction email وحكى دورن دوتا يعني email كل أسئلة سؤالي email كاسمستي مباق سؤال دوتا transaction email كان أوكي وحكى لو قلنا دوتا communication email إسكا وأسئلة عادي هاد email transfer email كgateway كان subscriber هل كان خاصو مع مرة payment information حكت payment information waa laba nooc kaliya. kow midda koowaad payment threshold waxaa laga wadaa yacni intee cadad la-eg yaad rabtaa markii lacagtan gaarta inaa la baxay. inta badan hadda meeshaan waxaa iga qoran saa arkayso $100 qoran laakiin adiga waxaa ka dhigi kartaa ugu yar 50 saa jecesha. payment methodkana waa check ala sameeya check
haddii oo tusaalahaan direct deposit isticmaalayso oo akoon caadi toos uu kugu xiran yahay waa samayn kartaa. markaas waxay ku xiran tahay haddii oo qofka akoonkiisa wuxuu qaab ku yahay. hadduu check yahayna check isticmaal, haddii Payoneer isticmaalaysana check isticmaali doontaa. Payoneer see loo samaystaa waxyaalahaas dhan iyadana course aan ka diyaarin doonaa insha Allah. sidaasna waxaa lagu sameeyaa. waxaan sameynaa akoon soo sameynay, akoon markaan sameynay oo soo galnay akoon settingkiisa tagtay kadibna xogtaana kugu buuxisay. sidaas waxaa kugu samaysan click bankina waa samaystay, akoonna waa ku xirtay. hadda marka waxaa ku dhiman inaad productyaashii aad doorato kadibna aad promote garayso. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. soo dhawaad saaxiibayaal, casharkan waxaa u hadli doonaa affiliate marketplace, suuqa dhan meeshuu ka shaqeeyo ayaan uga hadli doonaa coursekan. affiliate marketplace ayaa click siin doontaa. sidaan isku kaa furi doonaa. meeshaan waxaa arkaysaa suuqi dhan. halkan waa marka meesha wax ka haysiin doono all categories intay ku jiraan. tusaale suuqan waxaa jira waxyaalo qaar la haysiiyo oo inta badan macnaha dadka u baahan yihiin reer galbeedka. inta badan waxaa jira waxyaalo ay u baahan yihiin oo inta badan la haysiiyo. markaan waxaa ku watan lahaa 3 xabo oo keli ah inaa markasta haysiiso. marka ugu horeyso waa bidding system, alaabta yani eeyaha iyo waxyaalahaas ku saabsan, because dadka reer galbeedka inta badan eeyaha waxyaalahaas isticmaalaan. alaabtan bidding systemka si fiican ayay yani u gadmanaysaa. sidoo kale waxaa kaloo la isticmaalaa waxaa loo yaqaana e-business and market, electronic business iyo sidoo kale e-marketing. waa midda labaad oo iyadana suuqa inta badan laga haysiiyo, because waxaad haysiiso maanta dhan yani waxba aad ka faa'iideynin ma soconayso. e-business and e-marketing ayaa haddana sidoo kale ayaa laba ah. midda saddexaadan kugu waltan waxaa waa health and fitness, waxyaalaha la isku caatay iyo waxyaalahaas dhan, because dadkan inta badan reer galbeedka waa dad aad yani fat badan leh. marka waxay u baahan yihiin health and fitness si fiican ayaa loo raadiyaa. haddii hadda health and fitness aad ku dhufto waxaa arkaysaa waxaa kusoo bixi doona alaabo aad u badan. hadda midda ugu horeysa waxaa lahaa waxaa loo yaqaanaa health and fitness Java Pro. meesha maxaa arkaysaa marka. okay, waxaan rabaa inaan marka aan isla fahanno. markii halkaan aad timaaday tusaale waxaaba dooratay e-business and e-marketing aad doorato tusaale. marka e-business e-marketing daarato halkaan waxaa kusoo bixayso live chat jobs. markii sidaan kusoo baxdo waxaan waa sharaxi doonaa qaabkii kaliyihiin waa sharaxi doonaa dhima lahan intaas soo fahanna. markii alaabta aad rabto yani inaad wax haysiiso 3 xab waa inaad iska fiirisaa. haddaan kuu sheegaa midda ugu horeyso horta alaabta waxa aad haysiinayso wax socona oo gadna ma yihiin. midda labaad waxaa iska fiirin doontaa gravity scorekiisa intuu gaarsiisan yahay. gravity scoreka intuu gaarsiisan yahay maxaan ka wadaa. tusaale waxaa leedahay waxaan rabaa dadka gravity scoreka waxaa laga wadaa dadka alaabtan haysiinaya intay gaarsiisan yihiin tiradood. dadka alaabta because alaab waxaa jirta 3,000 oo qof ka badan oo macnaha uu ka jiro competition, tartan badan uu ka jiro ayaa jirta. marka gravity scoreka waa iska saxaysaa. waxaa leedahay tusaale eber macquul noqonaysa. waxaa leedahay 10 qof ilaa iyo 50 qof. 10 ilaa tusaale 50 ah macquul. 70 hataa okay. 75 okay. alaab intaasoo qof ay haysiinaan rabaa leedahay. meesha initial conversion kasana waxaa loo isticmaalaa inta badan. haddaan meesha imaano initial conversion waxaana iyagana waa waxyaala sida hadda camal ah qofka meeshii alaabta. laakiin gravity scoreka ugu badan. gravity scoreka ayaa kaaga filan. gravity scoreka waa midda labaad waxa ugu muhiimsan oo rabo inaan ku tuso. markii gravity scoreka aad doorato waxaa lagu tusi doonaa yani alaab. hadda fiir midda gravity scorekeeda waa 6 arkaysaa. markii alaabta aad soo doorato tusaale aad timaado waxa aad rabto inaad hayso oo timaado click siiso. markii waa inaad iska xaqiijisaa gravity scoreka iska fiirisa. waxaan yani wax alaab competition badan haddii tartanka suuqa wax aad looga tartamaa meesha gees ma ku soconayso. gravity scoreka doorato halkaan usoo bixi doontaa. marka product kasta waxay leedahay gravity score, waxay leedahay initial conversion,
waxay leedahay feature bill inta ugu badan feature billka inta ugu badan waa leeyihiin waxaa laga wadaa marka graft scoreka waxaa laga wadaa waa dadkii alaabtan xayeysiinaya intay dhan yihiin graft scoreka waa number of unique affiliate links generating this sale markaysa waa dadka xayeysiinaya alaabtan intay dhan yihiin initial conversion-kana maxaa waay haddii alaabtan aan xayeysiiyo yacni conversion-ka ama aniga lacagta commission-ka lii siin doono waa $9 waa $9.94 laakiin productiga waxyaalaha cajiibka kule waxaa kamid ah feature bill waxaa la leedahay tusaale haddii productiga inaa xayeyso hal mar oo keliya laga gatay bil kasta waxay ku siin doonaan $40 waa rebilling waa productkaasaad gada keliya bil kasta waxaa lagu siin doonaa $40 I think meel ay ka shaqeysa inay yartahay barnaamijkaasa rajeynaa intaas inaa kala fahanteen rajeynaa graft scoreka waa inta qof oo alaabta gadatay yacni lacagtaana waa middaa ka heli doonto alaabtan markii yacni commission ka heli doonto waa $9 laakiin $9 markaa hesho alaabtan faa'iidada kale leedahay waxaa kamid ah bil kasta yacni dadka kambaniga alaabtan iskale waxay kusoo diri doonaan $40 iyo kugu soo diri doonaan akoon numberka hadda aan kusoo xirayn ama aan kusoo xirtay cashirka hore aan kusoo xirnay intaas iyadana waa sida mataqaanaa loo doorto product wanaagsan loo doorto tusaale haddii aan rabno health and fitness aan kaa tuso health and fitness haddii aad click siiso sida hadda camal waxay kuusoo saarayaan waxaa arkaysa hadda meesha inay xayeysiisay 682 qof alaabtan xayeysiinaysa hal mar oo keliya markii laga gatana waa $446 yani $446 laba xabo haddii maalintii lagaaga iibsado oo wax aad u tiro badan laakiin waxay u baahan tahay in iska iibsana wax maanta diido macnaha maanta inaad soo gasho birina lacag samaynaysa ma jiraan waxay u baahan tahay waqti badan waxay u baahan tahay yacni dadaal badan iyo pressure badan aad samayso u dulqaadato joogteyso soomaali haddaan nahay waxyaalaha oo ku dhibana waxaa kamid ah consistency dhan ma lihin joogteyn ma jirta waxa inaad joogteysaa laga rabaa haddii aad joogteyso waqti geliso xaqiiqatan waa gaaraysaa wadooyinkan amarto wadooyinkan waxaa kugu tusi doonaa yacni beginner aniga yani hadda u shaqeynayaa si beginner u fahantay waan rajeynaa okay marka meesha waa isla fahnay graft scoreka inuu yahay inta qof oo xayeysiinayso laakiin waxaan ku sheegay 682 qof meelihii hadda xayeysiinaysa haddaa dhex gasho yani waxaa ka cunaysa waa yartaa markaad waxaad iska doorataa graft scoreka tag kadibna dadka ka dooro wax saaro 70 50 ka dooro meesha umaa markii halkan aad doorato alaabada marka laba nooc waa inaad yani ugu soo hormariso kuwa ugu hooseeya kuwa ugu lacagta hooseeya ugu graft scoreka hooseeya ama kuwa ugu graft scoreka badan meesha laga doortaa rank high to low meesha ay ku qoran tahay jibtaas keligaa siin doontaa waxaa ka dooran doontaa graftigiisa waxaa u baahan tahay high to low waxaa u baahan tahay in lagaaga soo bilaabo kuwa ugu sarreeya oona lagu dambeysiyo kuwa ugu hooseeya ama graftigiisa waxaa u baahan tahay in low kuwa ugu horeeya kuwa ugu hooseeya yani kor la mariyo tusaale haddaan low idhaahdo waxaa arkaysaa kuwa ugu hooseeya yani in laga bilaabo marka meesha waxaa sameysaa inta badan graftigiisa inaad ka dhigata high to low yani inaad ka dhigto isku day kadib producti waa kana marka waxaan samayn doonaa marka inaan producti qaadno productiga sida marka dhow yani loo xayeysiinaa tusaale linka aan ugu horeeya ku tusi doonaa waxaad dhihi doontaa promote markaa promote tiraahdo meesha waxa kusoo bixi doono marka hadda midda maxaa laga baahan yahay fiir alaabada qaar yani ma la galo hadda meesha waxaa laga baahan yahay macluumaad iyo barnaamijyo kale laga baahan yahay mid kale aan iska tegi doonaa midda hadda promote click see just like that okay dan click see okay marka meeshaan click siino waxaan samayn doonaa hop linki aan dooran doonaa hop linkigiisa markaan doorano meeshaan waxaan samayn doonaa traffic typeka meesha waxaa ku sheegi doontaa blog inaan blog ku samaynayno kadib generate linkigiisa ah affiliate link name meesha aan gelino yes hadda ii sameynaa xoogaa platformka yani waxay kusoo dareen waxyaalo cusub feature cusub ay kusoo dareen
هذا ماشي kusoo laabto markaad promote tiraahdo dadka qaar waxay sameyn doonaa in kaliya uu ku yiraahdo yacni hub linkii kubiyeyso hore kaaga soo qabto dadka qaarna sida haddana iisoo saara camal uu kusoo saari doonaa meesha waxaa ka dooran doontaa nicknameka hadaa ay soo dooran ku ah tijaabo nickname badan igu jiro affiliate nicknamekaada dooro haddii kuwa badan aad samaystay kii aad soo samaystay le ka dooro kadibna inta imaado halkaa imaado traffic type dadka qaar uma soo qaban doono laakiin dadka qaar hadduu soo qabto inta badan annaga waxaa ku haysiin doonaa inta wax lagu haysiiyaa paid organic paid haddaan idhaahdo hataa paid lacag bixin lacag laysiiya laakiin traffic type waxaa wanaagsan blog inaad ka doorato kadibna waxaa lagu generate gareyn doonaa linkigan lagu siin doonaa haddii aad copy idhaahdo linkigan qof kasta oo linkigan click soo siiyo waa link shaqeynayo waxaa la geyn doonaa yacni sales pagekii yaa la geyn doonaa oo productgan because productgan sales pagekeeda ku ahaa waxaa ku qornaa kana aad marka laabto waxaa ku qornaa java boron markaysa java boron sales pagekiis waa kana meeshaan qofka imaan doona intuu alaabta ka iibsan doona marka qof kasta oo linkigan adiga lagu sii soo raaca linkaas adiga lagu sii soo raaca waxaa la samayn doonaa yacni markaasaa yaa adiga abaalmarintan lagu siin doonaa commissionka waxaan rajeynayaa inaad fahamtay sidii mataqaanaaye product loo doorto 3 xabaan kugu taliyey 3 xabaa beating systemka iyo business iyo sidoo kale health and fitness 3 xabo unbaa mid kamid haysiin doontaa markii aad gudaha usoo gashaan waxaa isla fahnay in gravity scoreka iska fiirin doonto meeshaana iska fiirin doonto high to low inaad dooran doonto markaas kadibna promote inaad tiraahdo kadib linkiga si loo soo qato waa taqaanaa يعني meesha inaan tijaabo sameyno oo tijaabiska anaa tijaabo waa nicknameka daai markii ugu horreysay kooraska aan bilaabay yani cashirkii ugu horreeyay aan kusoo sameeyey markaad tijaabo ka doorato meeshan traffic typeka hadduu kuusoo qabto waay waxaan hadduusan kuusoo qaban linkigaada horaa generate ka leedahay blogaad ku dhufan doontaa kadibna waxaa leedahay copy linkigaana marka qaadi doonaa waxaan geyn doonaa waxaan u sameyn doonaa landing page sida loo sameeyo landing page inaan sameyno linkigaana ku dhex qarin doonaa alaabta anagoo ka dhex raacayna because company kasta fiiri wuxuu leeyahay landing page uu leeyahay marka landing page sida loo sameeyaa sidee alaabta loogu doortaa waxaas dhan cashirka ayaan ku arki doonaa.